أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan waxaa looga hadlayaa cilmiga tajwiidka. tamhiid gogol dhig weeye. cilmu tajwiid alqur'aani alkariim. muxuu yahay cilmiga tajwiidka qur'aanka kariimka? huwa cilmun cilmi weeye rafiicu uu sarreeyo addikru xuskiisa sheegiddiisa aad bay u sarraysaa. shariifu lmansila shariifun ay wanaagsan tahay almansila mansiladiisu aad bay u wanaagsan tahay. waalqadri makaanadiisa iyo meesha uu boosku jooga boos weyn weeye. qadarkiisu aad buu u weyn, cilmi sharaf la weeye, qofkii bartana sharaf buu leeyahay. cilmigaa wuxuu sharaf ku yeeshay likownihi ahaanshihiisa mutacalliqan uu la xiriiro bikalaami rabbi alcaalamiin, hadalka ilaahay buu la xiriiraa. waa qur'aankii sidii loo akhrin lahaa cilmiga ku tacalluqa weeye. maadaama ilaahay kalaamkiisa uu la xiriiro sharaf weyn buu leeyahay. kalaamkaas rabbulcaalamiin oo alladii kaasoo nazala uu soo dejiyey bihi ruuxu lamiin alruuxu alamiin malakuljibriil qur-aankuu soo dejiyey calayhi salaam. jibriilu calayhi salaam qur-aankuu soo dejiyey oo uu ku soo dejiyey calaa qalbiga sayidi almursaliin, sayidkii rususha oo dhan muxamed sala allahu calayhi wasalam qalbigiisa qur-aankii lagu soo dejiyey ee jibriil ku soo dejiyey. qur'aankaasoo ilaahay kalaamkiisii ah ayuu la xiriiraa, marka saasuu rafiicu dikri u noqday, xuskiisa uu u sarreeyaa. altajwiidu fi luga, xagga luqadda tajwiid maxaa la yidhaahdaa? huwa taxsiinu wanaajin weeye. yaquulu lcarabu carabtu waxay dhahdaa fii luqatihim luqadooda fulaanun hebel jawada shay'a shaygii buu hagaajiyey, ay xasanahu waa wanaajiyey, wa ajaadahu waa wanaajiyey, wa atqanahu waa hagaajiyey. marka tajwiid min alitqaani weeye, hagaajin weeye. min alijaadati ajaadahu ijaadatan waa hagaajiyey. xasanahu xasan weeye, wanaag buu si wanaagsan buu uu qur-aankii u akhriyaa laga wadaa. xagga luqadda altajwiidu fi lisطilaaxi, xagga maxay ahayd cilmigane waxaa weeye waa cilmi la baranayo oo huwa icطaa'u in la siiyo alxuruufi xuruuftii xaqahaa xaraf walba xaqiisa in la siiyo, oo min asifaati sifooyinkii xarafka uu lahaa, wa mustaxiqihaa xarafka xaq waxa uu u leeyahay, oo min alaxkaami ah axkaamtaasoo annaashi'ati ka dhalatay can haadihi sifaat, axkaamtii sifaatka ka dhalatay oo xaraf walba la siiyo weeye. marka alif dhahdo oo ba dhahdo oo ta dhahdo oo too dhahdo, xaraf walba xaqiisa waa inaad siisa, meeshuu ka soo baxayna aad ka soo saarto. cilmigaas weeye. xukmu tajwiid alcamaliyi sharcan, in lagu camal falo oo qur-aanka tajwiid lagu akhriyo xagga sharciga xukunkiisu muxuu yahay? xukmu tajwiidi, xukunka tajwiidka alcamaliyi in lagu camal falo sharcan, alcamalu bihi in lagu camal falo waajibun weeye. qof kastoo qur-aanka akhrinayo inuu ku camal falayo waa inuu tajwiid ku akhriyo, waajib weeye. calaa kulli mukalafin, qof kasta oo mukalafa waajib buu ku yahay oo qaangaaray. yaxfadu qofkaasoo doonaya inuu xafida alqur'aana qur'aanka kariimka ah kulligiis, aw amise bacdahu qaarkiis, aw amise yuriidu qof kastoo doonayo qiraa'atahu qur'aanba inuu akhriyo waa inuu tajwiid ku akhriyo. marka waa inuu barto weeye. marka maxaa daliil u ah? liqowli illaahi baa daliil u ah caza wajal, waratili lqur'aana tartiilaa, qur'aanka akhri oo kala dhigdhig oo tajwiidi, tartiilan tajwiid kala dhigdhigid ahoo macaan ku akhri. wa huwa cilmiga tajwiidka laazimun waajib weeye, wa waajibun waajib weeye fii xaqi ahli ladaa'i, culummada waaweyn oo macalimiinta ah ee dadka waxbarayo ahlul adaa baa la yidhaahdaye waajib buu ku yahay.
waalculamaa culamada waajib buu ku yahay sidoo kale. ahluladaa waa macalimiinta qur-aanka, waalculamaana waa culummadii aladiina kuwaasoo yucallimuuna barayo annaasa dadka alqur'aana barayo. waajib buu ku yahay inay qur-aanka waajib ay ku akhriyaan tajwiid. wa huwa xukunkaasna daliilkiisu thaabitun wuxuu ku sugan yaho oo daliil looga helayaa alqur'aana qur-aankaa lagu sheegay, wasunnati annabawiyati nebiga sunnadiisaa lagu sheegay, waalijmaaci culummadii islaamka oo dhan baa ijmaac ah arrintaas. xukmu tajwiid nadariy, tajwiidka in oo si muxuu ahaa nadari ah loo barto muxuu yahay dadka oo dhan guud ahaan, ma aha culummadii iyo mashaaikhdii iyo macalimiintii qur-aanka, ma dadkii caadiga caamada muxuu ku yahay. huwa fardu kifaaya weeye, wayanbagii waxaa haboon fardu kifaaya weeye, wayanbagii waxaa haboon lilmuslimi muslimka an yajtahida inuu dadaalo fii tacalumi qiraa'a, barashada qiraa'ada akhrinta kitaab illaahi sida loo akhriyay qof walba inuu barto weeye. qiraa'atan akhrin saliimatan oo saliim ah oo baciida ka fog can ilaxni, laxni ka fog, jejabin qur-aanka la jejabiyo ka fog, liyakuuna inuu ahaado si uu yowma alqiyaama u ahaado qofkaas qur-aanka akhrinayo oo laxniga ka fogaaday ee sharafta ku akhrinayo maca almalaa'ikati, darajadii malaa'igta alkiraam yowma alqiyaama inuu galo. darajadaas hadduu rabo inuu gaaro waa inuu qur-aanka ku akhriyo tajwiid. sala allahu calaa muxamed waaalihi wasaxbihi wasalam.